السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصاحبكي أحمد عبد الله إن فيديو قابن وحان ربا إن كل شرحه habka loogu soo dari lahaa coin aan ku jirin Trust Wallet. Trust Wallet waa wallet flexible runtii oo aqbala blockchain tira badan coinka ku dul dhisan. Sidaa darteed waxaa dhici karta in aad coin ka soo iibsatay DApps ka waxa loo yaqaano ama decentralized exchange ka ku dul dhisan ama ku dhex dhisan Trust Wallet, laakiin coinkaas aad ka weydo Trust Wallet gudihiisa aad ka weydo. Marka waxaa laga yaabaa qofku inuu ka naxo ama uu coinka xagee maray. Marka mid ka mid ah asxaabta ayaa xagga luuqa iga soo weydiiyay su'aashaas isagoo ka dhex iibsaday Pancake coin loo yaqaano Carom kadibna ka dhex waayay. Marka insha Allah hadda halkan hadaynu ka baarno coinka magaciisa uu soo sheegay ninkaas walaalka Carom kuma dhex jiro. Marka qofkii waxa laga yaabaa inuu naxo qofkii aan fahamsanayni uu yiraahdo coinka xagee maray. dib ma laha waxaad tagaysaa browserkaaga marka tagto waxaad booqanaysaa website-kan halkan kaaga muuqda BSC scan coin kasta oo lagu dul dhisay Binance Smart Chain halkan ayaad ka baaraysaa kadibna waad helaysaa. Marka hadda waxaanu baaraynaa insha Allah coinka magaciisa oo ah Carom marka way noo soo baxay waan ku dhufanaynaa markaan ku dhufano waxaan u baahanahay halkan ayaan u baahanahay contract ku qoran tahay ama contract address kaas ayaan copy ku dhufanaynaa kadibna waxaan ku laabanaynaa Trust Wallet. hadda mar labaad ayaan coinkii baaraynaa Carom kuma jiro laakiin dib ma laha waxaad ku dhufanaysaa add a custom token meesha ku qoran tahay. markaan halka ku dhufano waxaad iska jiraysaa halka wad bedelaysaa halka hada Ethereum ayaa inoogu taagan. marka waxaanu ka dhigaynaa Smart Chain baynu ka dhigaynaa. Smart Chain ka dhigto Bastion baad leedahay wad u jeedaan coinkii in uu hadda intii information kale isagu dhameystiray kadibna dhan baad ku dhufanaysaa. very simple. marka saas ayuu hadda coinkii wuxuu kugu dhex jiraa Trust Wallet. haddii lacag aad ka iibsatay ama aad lacag ka haysatayna waad arkaysaa insha Allah. marka asxaabta videogan gaaban halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. akhyaarta aan horu ogeyn insha Allah inay ka faa'iido doontaan ayaan rajeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.